بسم الله الرحمن الرحيم. maanta ay sabti tahay bishuna 8 bishii koobaad 2022 waxaan halkan aan inagu ajburay inaan ka hadalno go'aankii xalay uu soo saaray ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee ahaa dadkii siyaasiyiinta ahaa ee xidhnaa ee la sii daayay. Horta waa midoo waan ku faraxsanahay dadka siyaasiyiinta xidhnaa in la sii daayo, waan ku faraxsanahay, kama xumin, waa dad walaalaha iyaga ahaa. iyadoo arrintaasi waa taa in waxaan doonayaa inaan Soomaalida xasuusiyo halkan aan maanta fadhino waxay tahay gurigii aan ku duubnay markii Cabdi Ilay uu dhibaatada badan Soomaalida ku hayay. Cabdi Ilay waa run dhibaatooyin aad u fara badan, dil, dhac, boob, waxba Soomaalidu lama harin baa hay'adoo dib weyn buu ku hayay. marka anigana Ilaahay waqtiga wuxuu iga dhigay qofkii u horeeyay ee intuu baraha bulshada soo fadhiisto arrinta cambaareeya oo si cad u cambaareeya. 70,000 dadka badanna way daawadeen maalinta. waxa weeye maanta maalintii aan dad Cabdi Ilay aan cambaareynay ma horaan u cambaareynay, horaan u sheegnay. maanta waxa weeye waxaan si cad inaan uga hadlaan doonaynaa qoorsiga iyo yaraysiga uu ku kacay ra'iisul wasaaraha Itoobiya. ra'iisul wasaaraha Itoobiya nimankii siyaasiyiinta ahaa ee xidhnaa, hadday Tigray yihiin iyo hadday Oromo yihiin iyo hadday Amxaar yihiinba uu soo daayay. laakiin wixii Soomaali ahaa ee siyaasadu xidhnaa muunan soo dayn. taasi kama dhigno in annagu aan jacaylo gaara u hayno Cabdi Ilay ma ee arrintaas aan maanta ka hadlayno waxa weeye qoorsiga uu ra'iisul wasaaruhu Soomaaliya u geystay iyaan diidanahay. waxaan leenahay in sida siyaasiyiinta kaleba loo soo daayay Cabdi Maxamed Cumar isagana ha loo soo daayo oo xurriyadiisii ha la siiyo. waayo dadkii dhibta weyn geystay ee dagaalada weyn ay ka dhaceen waddanka dhanba uu ku kala kici gaadhayba ee lagu kala hooyan gaadhayba waa la soo daayay. maxaa Cabdi Maxamed Cumar loo soo dayn laayahay iyo siyaasiyiinta kale ee Soomaalida? waxaa ka mid ah siyaasiyiin Soomaali oo dhawaan la qabtayna way jiraan oo uu ka mid yahay darayta dhagaweyna uu ka mid yahay oo wax lagu qabsaday aan jirin oo sida la sheegayo tuum baan u xidhnay la yidhi uu Cabdi Ilay waxaan u jeedaa inac jar uu haysto uu xabsiga ku haysto. ninka waxa loo xidhayna waxa weeye fikirkiisii buu ka hadlay, fikirkiisii buu sheegay. intaas uu xidhan yahay, wax kale uu xidhan yahay ma anagoo ku soo noqonayna arrimaha Itoobiya ka taagan. waxaan ognahay markii uu horeysay maaha wuxuu Abiy Ahmed uu Soomaali bahdilo. dawladdii dhawaan uu dhisayay dhawaan dhisay Soomaali wuxuu ka siiyay hal wasiir, Oromo 7, Amxaar 7, Sildeegu 2 wasiir bay qaateen. Afar hal wasiir iyo wasiir ku xigeen qiimo weyn ku fadhiya. waxa weeye kolka waxaan arkaynaa yaraysi uu dadka Soomaalida si gaara ugu hayo Abiy Ahmed. haddaan isaga ka soo noqono waxaan wada ognahay Soomaalidu cad wixii ay Itoobiya ku lahayd maanta ma haysato. haba yaraatee cad waxay Itoobiya ku lahayd ma haysato. hadday tahay shaqaalaha baananka, hadday tahay shaqaalaha telecommunicationka,
hadday tahay shaqaalaha maad aragtay electric lightka Ethiopia elbaada la yiraahdo waxa oo dhan Soomaali way ka qadan tahay komishineerada kale Ethiopiana way ka qadan tahay waxa weeye kolka waxaan ognahay dawlad deegaanka Soomaalida ragga maanta majaraha u hay uu kamid yahay madaxweyne Mustafa wuxuu horay u sheegay uu yiri dhul Soomaaliyeed haltaa ka bixin maayo dadkii ma hayna maanta wuxuu horay u yiri dhul dadka ummadda Soomaaliyeed difaacigan gali ma hayna deed waanagii ogeyn xasuuqi ka dhacay garbaciis waxaan ogeyn xasuuqi ka dhacay cadayto waxa oo dhan isaga abaka dadkana isaga badbaadin waayay dadkii la xasuuqayna wuu diiday inuu yiraahdo dadkayga waa la xasuuqay wuu oran waayay mana hortagin marka waxa weeye ninkaas cidda uu matilayo annagu ma garanayno waxa kale oo jira maalintii warkaas soo fuulay wuxuu yiri cad wixii Soomaali ka maqnaa ana maanta doonayo waan keenay buu da aw wuxuu keenay wixii uu doonay aw wuxuu qabtay ma hayna deed annagu waxaan arkaynaa hadduu wax qabtay inuu Soomaali qolo u kala saaray reer uu isagu ka dhashayna sadbursi u sameeyay inuu handana maanta shaqada uu ku jirana ay tahay waxa aad u foolxun oo ma aragtay meel hoose ah reer Cabdillah reer Isaaq dagaal reer Cabdillah maxaa day faa'iido noogu jirta annaga Soomaali hadana Soomaali waa la isku soo dhaweeyaa laakiin waan ka aarsana faa'iido ma keento waxaan arkaynaa maanta ninkaasi aniga sheegaya waxaan ahaa ninkii u horeeyay ee baraha bulshada soo fadhiistay Cabdi Cumar dagaalka ku qaaday waxaan kamid ahay shirkii weynaa saddexdii oday ee ku qabatay dir dhaban kamid ahay buu Xuseen iyo Maxamed Aadan Bile barbaartii gobolkan City yaa halganka u weyn iyaduna ka qayb qaadatay waxa oo dhan anagu og yaan maqlay daraatoole isagoo halgankii ma aragtay Cabdi Ile lagu riday iyo sheekada wadwadaan arkeen waxa weeye horta taariikhdu isma qarinayso ninba wuxuu soo tarayna waa la wada garan maantana kaalinta uu ku jiro waa kaalin aad u foolxun oroma way tashato waxay jira ragayga xidnaha la soo daayo amxaar sidaa si leeg dawlad deegaanka Soomaalidu ma tashato ma tiri war hadii dadka kaba la soo daynaya siyaasiyiinta ninka la soo daayo haba la soo daayo kolka dambe Soomaali maxkamadeega keenatay annagu aan xukuumanabe ma jirto lama hayo wuxuu eriyadkiisuna waa eriyad ku salaysan qabyaalad iyo meel hoose Soomaalina ninkaas waxa la laaliyo wuxuu u hayo ma jiro waan ognahay imika heshiisku la soo galay cafarta ma aragtay wixii hor u yiri waan ka laabanay Cabdi Ile wixii ayna waxba ka jirin oo imika uu leeyahay 12 qodob ee Cabdi Ile uu sameeyay yaan maanta dib u qaadanayna waxa weey war anagu dadkii Ilaahay dhulkan dhigay baan nahay afarna anaga la tashanayna leeshiinayna la wada hadlayna haddaan dagaal isku qaadnana dagaalka anaga qaadayna oo adiga waan aragnay inaanad waxba ummadaadu qabanayn oo aad daawanaysay ciidankana aad mijahaad ka xidhxidhay markii dhulka iyo dadka la xasuuqay waxa weeye koroneeladiina waan ognahay raggii ka dhiidiyay inaad shaqadiiba ka iriday shaqadii inaad ka iriday ninkii cundhufa joogay yara kaloo badan de waxa weeye warwaanku aragnay niyahow Soomaali anagu kumana dooranay meelaad ka timiday waana nagu ku guud keenowne anagu dadkii isbedelkan keenay baan nahay
isbedel kiyan keenayna waad boobtay si aad u boobtay iyo si lagu isticmaalay ba halkaana waad la martay maantana meel fool xun bad la gashay xilliga hadalkayga waxaan ku soo koobayaa dawladda Itoobiya waxaan leenahay waxaan ugu celinaynaa yaraysiga aad Soomaali ku wadaan mid aan yeelayna maaha mid aan ogolaanayna maaha nimankan haddii aad adigu xidhxidhatayna oo adigu ku shaqaynayaanna de annagu Soomaali intii ka badnayd baan nahay mana ogolin yaraysi xaq iyo xuquuqii Soomaali ka maqnayna waan doonaynaa Itoobiya hadday heshiis ay Soomaali ka maqan tahay daadeero anu ma garanayo oo aqliga ku siiyay inaad Soomaali u xidhnaan aad haysato oo dadkii kalena aad heshiis iyo nabad baan doonay aad tiraahdo waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaali waxaan leeyahay wayniga arkay Itoobiya meeshii niga taagan tahay adii meeshii niga taagan yahay wada kiisi de Soomaali ay tashada isku yimaada annagu diyaar baan nahay horeyna ma aragtay kol iyo laba iyo saddex gogolba Soomaali waan u dhignay wixii u horreeyay Soomaali suu keenay waxay ahayd hursay ahayd dabadeed dirdhabaan suu keenay kol labaad baan suu keenay imikana diyaar baan nahay Soomaaliyay maanta waxaan nooga baahan yahay talo Itoobiya way naga arkaya reer kasta uu tashaday inaguna han tashano assalaamu calaykum